الهروب من سجن جلبوع غرب بيسان ليس حدثا عاديا، لا سيما أنه الأكثر تحصينا وحراسة من بين السجون الإسرائيلية. xabsiga jalbuuc oo la dhisay sanadkii 2004 waa jeel lagu tilmaamo midka ugu ilaalada adag xabsiyada gumaystaha Israa'iil, gaar ahaan halkan oo ah god ku yaal suuliga hoostiisa. waxaa ka baxsaday 6 ka mid ah maxaabiista reer Falastiin ee ku xidhan jeelkan. waxa ay qodeen god dhamaystirkiisu ku qaatay sanado badan. gudaha xabsiga jalbuuc oo ah mid ay adag tahay in uu si dhib yar ku baxsado maxbuuska lagu xidho. haddaba sidee ayaa xaalku noqonayaa marka aynu ka hadlayno isku dayidda in laga baxsado jeelkan, iyo weliba in aad qoddo god ay adag tahay in camuudda godkaas aad ka qariso dhowr iyo 10 waardiye, kuwaas oo kugu gaaf wareegaya habeen iyo maalin kasta. balse natiijada ayaa ugu dambayn noqotay in 6 Falastiiniyiin ahi helaan xorriyadoodii, kuwaas oo ka baxay god cabirka ballaciisa lagu qiyaasay 40 sentimitir, iyaga oo mar walba ku dadaalayay yaraynta miisaanka jidhkooda si ay mar uun ugu rumowdo riyadooda oo ahayd ka bixidda xabsigan. 6dii bishii 9aad sanadkan 2021, xilli wakhtigu ahaa saacadihii dambe ee habeenka, waxa ay 6dii maxbuus ka baxeen jeelkii ay muddada ku xidhnaayeen. cidina ma ayna arag, balse waxa arkay nin beeraley Yuhuudi ah oo ay si kadis ah uga soo horbaxeen iyaga oo ku labisan dharka shaqaalaha nadaafadda. xabsiga jalbuuc waxaa ku xidhan maxaabiis Falastiiniyiin ah oo gaadhaya 400, waxaana ku jira qaar badan oo lagu xukumay xabsi daa'in. Israa'iil ayaa xabsigan ku rakibtay qalab ay adag tahay in laga qarsoomo. tanina waa sababta xabsigan loogu magacaabay qalcaddii la xoojiyey iyo weliba sanduuqii nabdoonaa. jeelkan ayaa waxa uu ka kooban yahay 5 qaybood. qayb kasta waxa ay ka kooban tahay 15 qol oo qolkiiba loogu talagalay in lagu xidho 8 maxbuus. sidoo kale marka aynu dibadda uga baxno jeelkan, waxaa ku hareeraysan ay loo tababaray ilaalada jeelka iyo kamarado lagula soconayo dhaqdhaqaaqa ka socda dibadda jeelka. bishii Juun sanadkii 2014, waxaa jeelkan ka dhacay isku day maxaabiis Falastiiniyiin ah ay isku dayeen inay ka baxsadaan jeelkan, balse qorshahaas ayaa fashilmay. intaas wixii ka dambeeyay waxaa la bedelay qaabka ay u samaysnaayeen dhammaan suuliyada xabsigu iyo dhuumaha qashin qubka. sidoo kale ilaalada jeelkan ayaa maalin kasta baadhi jiray qolalka maxaabiista si ay u hubiyaan in uu jiro wax dhaqdhaqaaq ahi, balse waxaas oo dhan waxba ma tarin oo waxaa lagu baraarugay maxaabiistii oo aan ku jirin qolkoodii. ragga 6da ah ayaa kala ahaa Zakariya Zubaydi oo ka mid ahaa hogaamiyayaashii ugu caansanaa guutadii shuhadada Al-Aqsa, iyo weliba 5 dagaalyahan oo kala ahaa Yacquub al-Naficaat, Muxamed al-Qaasim, Yacquub Muxamed, Ayham Fu'aad Kamamji iyo Maxamuud Cabdalla. dhacdadan oo soo jiidatay indhaha caalamka, fashil weynna ku keenay hay-adaha ammaanka ee gumaystaha Israa'iil oo aaminsanaa in aan laga bixi karin xabsigan.